علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يقول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله وحلقة إني أفراد درسي إني أن أقوم قدرني لقد جئناكم بالحق. أما جئناكم بالحق وحان إذن لن نمد حق، لكن إن فربضا وددك كم إذا حقا إيقا ما فهم هيان أما أد بيقول بسن هيان ويكرها هيان. درسينا نعاوى وحكو سابسني هي أما محاضرة دينا شخصي كم إذا علماء اللي يقان علماء الوهابية أما علماء الخوارج المارقة. جماعة اللي يقان جماعة الوهابية أما جماعة المارقة أنت بدنا يقانان ومدى مسلمين تأه نصب شيغتو محمد عبد الوهاب أي عاوى وحانو سارينا بإذن الله الباري أنديرة سارينا أما إن شاء الله من ذلك ندور بناها أن نقوق بندونا بإذن الله الباري. شخصي قاسي مقعيس وحالي هذا حسان حسين ودوكتهين إن فربضان ومسلمين الصومالية كمدة إنو قاليسيي وحاوية إساونا قوهي أو قعنت قوها يستو تيم براها قال لماذا وحانو كسو فرحلاني ودوكتهين كاهين إساقا كهريي ومن كهنة الوهابية oo isaguna la yiraahdo Musdaf Ali Caanood oo isaguna Muqdisho ka qayliyay ama halka isaga abuuq ka furay in fara badan oo bulshada Soomaaliyeed ana dhiigooda xalaashaday. insha Allah marba waxaynu ka hadli doonaa jamaacatul wahabiya maxay tahay, dalkeenu sidee bay u galeen, Soomaali galbeed sidee bay u galeen sagaashameeyadii, Puntland sidee bay u galeen, Soomaaliya sidee bay u galeen, odayaashoodii hadda dhinaca u biiqay ama dhinaca ooga go'ay groupkoodan kale hadda hubaysan ee loo yaqaan ictisaam la baxay dib intee leeg bay dalkeena u geysteen, dadkeena Soomaaliyeedna dib intee leeg bay u geysteen. arrinta waa arrin u baahan falanqayn iyo cadayn. manhajka iyagu ay wataan ee takfiiriga ah ee manhajka Muhammad ibn Abdul Wahhab wadogtihiin alayhi ma yastahiqu min Allah hada al-la'im madhabkiisa ninka la'imka madhabkiisa ay wataan ee Muhammad Abdul Wahhab la yiraahdo meeqa غزوة ayuu qaaday, غزوooyinka uu qaaday se inta uu adduunka isagu uu joogay wax muslimiin wax gaal ama ku qaaday mise muslimiin buu ka qaaday uu ku qaaday. iyaduna waxa loo baahan yahay in arrinta iyada la cadeeyo si ay bulshada Soomaaliyeed ee ugu baahan taariikhda wahaabiyada ay u fahmaan arrinka isaga ah. waxaad ogtihiin ninka isaga mulxidka ah Xasan Xuseen la yiraahdo wuxuu ka dhawaaqay magaalada loo yaqaano Nairobi oo aniguna aan ku noolahay isaguna uu ku nool yahay. isaga oo yiri ninka isaga ah wuxuu wax ka sheegay Umar ibn Khattab iyo Abu Bakar iyo Aisha ayuu wax ka sheegay dilkiisuna waa hadal. awalan horta waxaan leeyahay ninka isaga ayuu dilkiisu hadal yahay waxaana waajib yeelay rasuulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nas'ad oo xadiid ah iyo nas'ad oo qur'aan ayaa waxaanu ku cadeynaynaa meeshan inuu dhiigkiisu hadal u yahay xilli iyo xaramna lagu dili karo maadaama oo bulsho badan oo Soomaaliyeed isaga fadwadiisa ama oraahdiisa lagu dilay waa waajib in la dilo. qof walba oo arka ayaa wuxuu ka goosan karaa xaqi isaga uu ku lahaa maadaama oo bulshada Soomaaliyeed aad ogtihiin kumanaan kun oo qof in yoomiye ay dhiman jirtay fadwadiisana lagu dili jiray. ninka isaga ah waxaa loo baahan yahay cadaalad ilaahiya inuu maro bulshada Soomaaliyeedna ay mariso kagana faa'iideystaan cadaaladda ilaahiga maxay tahay. de ninka dadkiisi la dilay ee maanta intuu halka ka soo cararay ninka fadwadiisa lagu dilay halkan joogo cadaaladda ilaahiga cid kale uu ka sugi karo ama xukuumad uu ka sugi karo ma laha isaga ayaa marin karo. cadaalad ilaahiga ayaa loo baahan yahay in uu qofka isaga amariyo oo uu kaga goosto. طيب هذا waxaan rabnaa inaan guda galno biidin illaahi albaari
laba arrimood oo uu ka hadlo uu yiri Umar iyo Abu Bakar waa waayeelada islaamka waa waayeelada islaamka islaamku waxaad ogtihiin wuxuu leeyahay wax la yiraahdo arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan Abu Bakar iyo Umar arkaanul iimaanna kamid ma aha arkaanul islaamna kamid ma aha wa arkaanul iimaanka wa an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi arkaanul islaam kana waxa weeyaan أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إيه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه هذا هذا أبو بكر كمد معها أركان الإسلام عمرنا كمد معها أركان الإسلام لبضوا ضمدنا كمد معها لبضوا واحد أكتهن ذنوب آذو فربضا إن أي كجلين أمد مسلمين تعالى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقوب حي تبوكا وحنا أمد المسلمين وكيل وردقي أما هرجوغا وردقي أمير المؤمنين ويعسو بالدين وابن عم المصطفى علي صلوات الله وسلامه عليه رسول كأنه مركي وكسر الله تبوكا ونحن الصومر هيو سيدا ابن حزم يا غير كيبا أي عديين قرآن كان أقول عديين رجبا دوري إنه يقول عمل قلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بور عقبه أمر هيي وآذو طوبا ayay rag 4 iyo 10 nin ah intay galeen inay nabiga hashiisi u saarnaa ku buubiyaan oo meesha ay ka dhacdo ayay damceen nimanka iyaga ah markuu nabigu soo dhow yahay oo meesha nimanka ay galeen uu soo dhow yahay ayaa wuxuu soo diray Xudayfa ibn Yaman markuu soo diray wuxuu yiri Xudayfa bal fiiri wadada rag baa ku jira ee malakul jibriil baa hadda ii waramay fiiri haddii uu meesha yimidna raggii buu arkay wuuna aqoonsaday 4 iyo 10 nin ma aqoonsatay waxba sheegin buu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam laakiin sida ibn Hazm iyo qeyrkii ay cadeeyeen koo waxa ka Abu Bakar iyo Umar raggii doonay inay nabiga dilaan 4 iyo 10 nin bay ahaayeen nimankaas waxay ka ahaayeen koo ilaahina quraankiisa kariimka nimanka iyaga wuxuu cadeeyay bacda an takunu muslimiin inta ay noqdeen muslimiin bacdigeed inay gaaloobeen oo inxiraaful iimaan oo ku dhaco shariicada islaamka ay banaanka uga baxeen إلهنا قرآن كيس كريم كوحكور يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليم إلهي قرآن كيس كريم كوحكور يحلفون بالله وحيقول نارا هيا إلهي وحذوقتهن عمر بن الخطاب بن مروى البؤوء من جري حذيفة بن يمان وأوله جري بالله عليك إلهي بانكو داريه منافقين تميان كجرا إلهي بانكو داريه حديقها مبشر بالجنة من جنة اللوغو بشاريه وحاوحاو كما جري ومن الأباطيل وياه حدوقها لها من جنة اللوغو بشاريه من نفاق اسكتهم لها آيات القرآن كأبا عدي سيدتك دباتا دا سميه إلهي بيكو ناران هيا لكن وحيكو قولين كلمة قال لما أبيكو قولين إسلام نماذو بعد جدنا ويقالوا وكفروا بعد إسلامهم ويقالوا وهموا بما لم ينالوا وحيهمين وحين قالين بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توحان ربا إن شاء الله آياتها هي آيات كلو فربضا إنا سفي عن أوقفها فاهنو حلقات كينا دنبه وحان ربا حسان حسين كان لو يقانو arrimaha iyada hadda ku kaxay fawaaxishta aalubayt rasuulillahina aad u isaa'iye u fool xumeeyay madhabka aalubaytkana inuu mar waliba isku dayo dadka inuu u fool xumeeyo habeen dhaweyto ayaa waxaan marahay masjidkiisa agtiisa meeshaas uu ka bulxamahayo uu ka qeyliyay oo qora ayuu rabaa akaadiib inuu u aqriyo akaadiib buu ka dhaadhicinaya wuxuu leeyahay xadiid baa jiro koo xadiidka isaga waxa soo saaray akhrinayay muslimka حديث وحوليه بلشده ugu sheekaynaya abu nabiga ba fi naar nabiga aabihi iyo hooyadiiba waxay ku dhex jiraan buu leeyahay naarta bartankeeda jiifo oo yaalo xadiidkaasi wuxuu leeyahay waxa laga warinaya Anas ibn Malik raqamkiisuna waxa weeyo waa 2003 ama 203 raqam marka qaarkood uu ku soo raraa Anas ibn Malik ba wuxuu leeyahay أن رجلا قال وحور يا رسول الله رسولك إله يو أين أبي آبهي آوي نبا يمد وحور آبهي آوي آبهي حقيبه جدا قال وحور رسولك في النار آبها نار تأيو نح جفاء برتن كنار تأيو يا الله والله يا كافير أظن فلما قفى نك هدو جيت سدي أو درع أو دقاق إنتون نحي أو مرجودي أو كربوضي
ayuu ninkii wuxuu u dhaqaaqay dhinaca maadaama oo la yidhi abuuka fi naar aabbaha naartu dhex jiifaa maadaama oo la yidhi ninkii aabbihii buu ka murgay wuu kurbooday maadaama aabbihii uu naartii dhex yaallo xaggaasuu u dhaqaaqay dacaahu nabiga ayaa u yeedhay falamaa qafaahu hadduu ninkii jeedsaday dacaahu rasuulka ayaa u yeedhay sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqaala wuxuu yidhi kaale niyahu kaale ina abi aniga aabbahay iyo wa abuuka aniga aabbahaygai dhale ee cabdillaahi ahaa salaamullaahi calayhi abuuna cabdillaahi salaamullaahi calayhi iyo aabbaha adiga ku dhale hadda aad weydiinaysay fi naari weeye oo naartay dhex jiifaan buu ku yidhi war xasaan haddii uu uga raadi noqday abuuna cabdillaahi salaamullaahi calayhi oo ilaahay qur'aankiisa kariimka uu ku yidhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcada rasuula dadka iyaga ahlulfatrada oo ilaahayna ahlulfatraha uu qur'aanka in badan kaga hadlay najahoodana uu sheegay abooyin nebiyina ayna shakiba kuba jirinba iyagu ninka halkaa dhigay inaan isaguna nimankan uu u yaqaano macbuudka ee isagu uu caabudo ee ilaahyaha yaryar u ah inaan annaguna naarta dhigno dhibaatadii ay sameeyeenna aan bulshada u sheegno cillada naga mancinaysa maxay tahay ayib ayuha alikhwa walakhawaat arrintaa iyadaa waa mashaakilinteeda le inayna bulshada soomaaliyeed ku baraarugsanayn habeen iyo maalinba in la dhiga naarta aabbihii rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo hooyadeen aamina salaamullaahi calayha in naarta la dhigo inaan ku baraarugi weyno wadaaddo kalena innagu aan u danaaninno waa mashaakil inteeda le محاضرتنا عاو هلكا إيادا أيام كسو قبقبينينا وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.